muddo ah waxaa xiran qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee xiriiriya magaalada Muqdisho iyagoona inaba aan loo ogolayn gaadiidka sida gaarka ah loo leeyahay taasoo ku qasabtay dad yowga leh in ay iska dhigaan gabi ahaanba ilaa inta sidan xaalku iska bedelayo inta u dhaxaysa 600 ilaa 700 oo gaadiidka kala duwan ah ayaa laga soo dejin jiray bishiiba dekedda Muqdisho sida ay noo sheegeen ganacsatada gaadiidka balse hadda waxaa ka soo degaatira 100 ama wax ka yar ah sabab la xiriirta wadooyinka xiran oo dhintay gadashada gawaarida oo si xooli ah ku socon jirtay annaga meheraddan ganacsiga ayaan leenahay ganacsanaa annaga iyo ragga la midka oo geerishada kala leh kulligay isku mid ayaan nahay sidii wadooyinka loo xiray wax aan gadnay ma jiraan markii maalmihii hore markaan gadi jirnay maalintii 5 baabuur 6 baabuur 7 baabuur 8 baabuur aan gadi jirnay isla markaasna aan dalbi jirnay inaan kuwa kale soo dejino waxna maanaan dalbin wax markii wadada ku soo jiray ma ahan oo maraakiibta soo saaraa waxna maanaan gadin oo geerishka waa u jeedaan albaabkiisii baawura ku xiran sidii wadooyinka loo xiray cid wax naga gadatay ma jirto isgoosida qaar ayaa loo ogol yahay inay isticmaalaan wadooyinka loo yaqaan bajaajta taasoo kordhisay in dadka intooda badan ay isticmaalaan mararka qaarna ay dhacdo in lacag u dhiganta tan shidaalka ay ku bixiyaan raacidda mootooyinka maadaama meelaha qaar ciidamada jooga aysan ogolayn isu gooshida mootooyinka gaarigii aan watay 45 bari meesha aan dhigay kama istaarin gaarigan si shakhsi u watay gaarigeygii ma wadan wuu yaalaa wax noo gadmayaana ma jiraan waa u jeedan dadkii geerish ku shirkada baa halkaas jirdiinka geedkaas hoostiisa fadhiya cid kale noo soo galaysa xataa ma jirto markuu qofku ganacsanayo wuxuu helayaa mid waa dalaalayaa mid waa gaarigu ku darawalkaaga noqona waxbuu kaa helayaa aduu macaash iyo faa'iida hele waxaad dareemi kartaa qofkii waxaysana lafihiisii wadaa qofkan waxaysana hadda suuqa waaba ka tegaba oo gurigiisii iska fariista waxaa haawanaya jidadka qaar ee horaan ay dhici jirtay in aad kala kulanto jaam iyo saxmad fara badan oo ka dhalan jirtay gaadiidka faraha badan ee isticmaalaya sida la rajaynayana waxaa suuragal ah in muddo kale uu xaalku sidan sii ahaado maadaama dhowaan uu maamulka gobolka Banaadir sheegay inay jirto in xaalad amniga wax looga qabanayo dalka uu ku jiro dadkuna ay dulqaad muujiyaan